tani waa qiso xanuun iyo yaab badan oo cid walba foojignaan iyo cabsi geli doonto wiil Soomaaliyeed oo hooyadii iyada oo fool ah laga xaday. hooyadan laba mataana ay isbitaal ku dhashay markii ay miir daboolantana gudaha magaalada Marko mid kamid ah carruurtaasi gaar ahaan wiilkii gabadhii wiilkii ayaa la qaatay laakiin baafin ayaa u sameynay. waxaa cajiiba sanado badan kadib hooyo wiilkeedii inay dib u aragtay sababtoo ah wuu soo raadiyay waxa uuna ugu tagay isbitaalka taqoosiga ah Muqdisho wuxuu ku wargelinayaa bulshada in lagu soo kordhiyo waxda qalimada neerfaha iyo lafdhabarta waxaana ka howlgalayaa Dr. Tamaam khabiirka taqoosiga qalimada neerfaha lafdhabarta iyo burooyinka madaxa wuxuu fulinayaa qalimada lafdhabarta qalimada burooyinka madaxa iyo dhammaan qalimada la xiriira neerfaha isbitaalka taqoosiga ah Muqdisho halka aad ka helaysaa adeeg caafimaad oo loo kalsoon yahay. salaamu alaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed waa ilintir waa iska tar ilinta ilaahayna qof kastoo garab aasiis ajirkeeda ha ku siiyo walaalkaana ka tir haddaad maanta murugsaneyn isagaa murugsan. saaxiibada nagu xiran ka cumrayntii way socotaa $300 hooyo aaba midkood labada waalid $500 ayaynu ka qaadaynaa sidoo kale isdiiwaangelintii bisha barakeysan ee Ramadaan way bilaabatay oo cumrada midda aad doonta ee waalidka loo sameyn doona nagu soo biir cilmowdiinka ayaa fulin doono iyagoo markaasi dhammaan acmaasha soo gudan doono. wakiilka ahay cali geedi ilaahay cumrada waa aqbalo waxaan ugu soo xiray shirkadda Anwar waxaan ugu soo xiray ninka la leeyahay Muxsan Cabdicasiis Riyali muuqaalada saciga dawaafka Safa iyo Marwa xirashadii Miss Aisha dhammaan ku soo dirayna anaga kor joogtan doono ilaa aan ka qanacdana lacagtaadu ma aysan dhiman. soo dhawahay marka hore magacaaga dhameystiran iyo halka aad ku sugan tahay ee aad naga soo wacayso. magacayga Dahabo Faarax Dhoofe Wafaa Xuseen Aadan. hooyo Dahabo waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee ilintir halkee ku sugan tahay oo naga soo wacaysaa. gaalka ayaan markaan ku sugnahay yaa kaa maqan oo barnaamijka baafinta u timid oo baadigoobaysay. ooyo waxaa iga maqan wiil marka intaan ku umulay iyadoo qalin la ii geeyay aniga layga qaatay kooma aan galay ana ka warqamin wax alla wixii markii qaatay ana ka warqamin laakiin si ka bacdi mar baan naloo sheegay naagtay qaadatay magaceeda. xilligii aad dhalaysay oo foosha aad ku jirtay oo xanuunka aad la miir daboolantay ayaa carruur laga xaday. waa miyir daboolmay qalin baa la ii geeyay marka waliba badaa la ii geeyay meesha lagu xirxiro ummadda lagu xiro maxaabiista markii meeshii la ii geeyay koomaa la ii geliyay ilmihii waa layga qaatay mataanay ahaayeen wiilkii baa layga qaatay gabadhiina waa la ii reebay. wiil iyo gabar mataana ayaa wiilkii laga qaatay meeqa sano ka hor markii 2 sano la joogay markii maxay la kala cararay burburkii 2 sano kadib waaye ka hor intaan la kala cararay 2 sano iyadoo la joogo waa 88 meelaas. waayahay hooyo marka 88 markaas labada caruura ma adiga isbitaal ahaan meesha u tago ku foolanayay see wax u dhacay nooga sheekee. waxaa layga keenay meel la yiraahdo kurtuwaari baa layga keenay waxaa la yiri qalin weeye labada ilmood madaxa waxay isaga maran yihiin saraha hore muriinkuna ma badnayn gacanta wiilka gabadhu qoorteeda u ku laaba. haye kurtuwaari baa layga keenay qalin baa la ii keenay waxaa la ii keenay marka la keenay nin masara la ii keenay badayna ahayd meesha maxaabiista lagu xirxiraa la geeyay markii ninkii ilmihii soo kala bixiyay buu yiri anigu xamar baan u socdaa markiina hadee way idin iriya xamar baan u socdaa. waa gartay markii xamar aadahayay oo markii ilmaha soo kala bixiyay irbaduu igu muday wuxuu yiri ha taabanina dadkii la soo raashay ha taabanina markay maxay to biyahaas ku dhamaadaan maraan ahayn qofkaas ha taabanina hadda fooluma haysee. haye markii oo sagii dhaqaaqay oo san xataa sharaanbaad u san gaarin ba ayar gaban inta irbadii iga tuureen bay irbada igu dhurteen marka 17 saac baan daboolaa. subxaan allah haye markaas kadib maxaa dhacay.
ilmihii markaasay irbadihii kululaysay midhaa igu dhufteen ilmihii wiilkiina midhaa meel gashadeen gabar xun la ii dhigay 17 saac markaan aan daboolaana markaasaan indhaha kala qaaday markii 8 saac ay ahayd waa gartay haddeen markaas warkana ma jiray gabadhii aniga ila joogtay naagta ilmaha gadatay waa tagtay waa dhuumatay magaalada ilmihii lala galay de qof la tagay inay gaala la tagtay inay muslim la tagay kama warqabo markaasaan waxaan yidhi nimankii maxaabiista nimankii hayay aan yidhi halkan ayaa ka hadlahaya mid inkaar ku dhacday oo isoo raacday waxaan yidhi igu yeedh markay igu yeedhay waxaan yidhi ilmaha layga qaatay ilmihii hayto naagtan bal weydiiyey ayadaa laysoo raacsoo la yidhi naagta tuugadaa ka dhowray haya hadda sidaas ay waxu jiraan laba habeen keliyahan meesha joogayo haddana meeshu baday ahayd waa ku aqanhayay cidi wax siin maynin kutuwaari baa laygu celiyey waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo hooy si degan haye adiga laba ciyaala oo mataanaa inaad dhashay ku xaqiijiyey waxa ii xaqiijiyey uurkan ku siday marka hore aan la xaqiijiyey oo horaa lagugu baaro waa la ogaaba horena waa laygu ogaaday markii ninku kala bixinahayana waa la ogaadayo wiilka bidixda iiga jirayo gacantiisa ay ahayd gabadha wuxuu ku laabay maya waxaan rabaa wixii caloosha dhexdeeda ku jira maka hadlayno banaanka inay usoo baxeen laba mataanaha ayaa kuu sheegay mise adaa arkay anigu ma arag laakiinse markii horena waa igu jiraan oo waa laygu sheegay naag meesha maxaabiis ku ahaydna waa sheegtay oo abgaal yaa kula socday oo arkay carruurta waxaa ila socday gabar baa ila socotay gabadhii waxay tiri waa lay cayshay anigu naagta tanaa waxay tiri meesha tana soo gelina meelahaas fadhiiso haya markii lala baxayay meel baa la gashaday markii maqribka ahayd baa lala tegay waxay tiri meesha waa loo adeegabayo waxaa la yidhi naag baa meesha soo gashayo naag baa ilmo ku dhashayo ninna ma joogo meeshana qalin waxaan ahay meesha ma joogaan marka adigu dad naagtaana waa sheegtay tanana waa sheegtay markii dambena naagtii waa lasoo qabtay oo markay 7 habeen maraysaa inta lasoo qabtay oo la xiray iyo haddana dhuumatay oo waa meel ay yidhaaheen kaba hirig bay ku dhimatay oo dee dad meeshii wax noola aada waa la waayey aabahiisna ma joognin kuntuwaarey ma iskaga laabata marka qof carruur ka maqana taa ahayd mise waxbaa raadisay kutuwaari baan isaga laabtay kutuwaari haddaan la iska laabtay waa lay geeyey hadalkii go-aan weeye meel lala aadiyo meel magaciisa iyo midna anoon ka warqabin baan kutuwaari intaan joogay yaan jirdhaa bilaastaas maqalla haye adigu ilaahay maqaadiradii markii la kala cararay kabacdi iyo dad jamaama yimid yaa waxay sheegeen wiil meeshaas in la keento lagu haysto oo nin daaroodii koriyey naagtuna maxayto magaceeda iyo ninka magaciisa iyo waxaas naloo sheega waa gartay ninkii wuxuu yidhi ilmahaanaan baafinahayaa ninkii marka ilmahaanaan baafinaya hadduu yidhi dugsi buu geliyey dugsi buu u dhigay wiilka qur-aan buu bartay adigu ninkii ilaahay maqaadiradii ninkii waa dhintay oo adigu waxaa lagu leeyahay ninkii calooshaa baradhay haye ninkii waa dhintay naagtii islaan weyne ninkuna weligiis wax ma dhalin naagtuna wax ma dhalin adigu ilmuhu u ahaayo ilmahaas waa korsadeen oo haddee ilmo u ahaa laakiinse magac buu u baxshay adiga markii aad foolanaysay iyo xaaladda uurka iyo waxaasoo dhan aawo ninkaaga soo kuma soo raacin soo kaama warqabin maya ninkaanu askar buu jiray halkaa iyo wuxuu jiray buuhoodla iyo halkaas iyo askar xeradeedu jiray waayahay carruurtaada soomaaliya ka yihin qabiilkooda leel kasta waaye adigana anigu reer beledyahan baana waa gartay intaa kadib marka sanado badan kadib maanta baadigoobkan iyo inaad baadigoobto carruur aa sheegtay xilligii foosha isbitaalka in lagaaga xaday 30 sano ka hor maxaa keen hadda waxaa keenay markii aan ka samray waaba iska daayay waa samray mar la ii sheegay magaaladan mar aadnay intaan anigu xamar baan joogay markii la kala cararay kutuwaaray baan ku noqday anigoo jooga oo kutuwaaray jooga iyo waxaa la yidhi naa ilmaha lagu arkay oo caynkaas oo meelahaas laga keenay baldugaa la yidhi dad baan watay waxaan aaday markaan aaday
markaan 3 maalmood iyo 4 ku wareegaynay waxba waaweyn waxa la yiri naagtii aan warka la arkay waxay ka daba tagtay meeshii loo arariyo ninkeedii bay ka daba tagtay markiiba haye adigu waa iska joogayo cid kale wax ma idino adigu ilaahay maqaadiradii hadalkii oo kooban wiil waa maxay naagu soo diray oo tiri hawartaana waa ma jeerteen waxay joogtaa kurtuweeray aabahana wuxuu jiraa dildab hadalkii marka ninkii waa soo kacay wiilkii nin yar buu ahaa 12 jira wuu soo kacay sablaaluu tagay war xagee kurtuweeray tahay meeluu tagay baraawuu tagay meeluu warwareegay meel la yiraahdo buulu yimid kurtuweeray baabuurkan raacdaa la yiri baabuurkii uu iska soo raacay wax dhanbuuna meel yaalay oo dhiig baa laga shubay adigu ilaahay maqaadirado markii ninkii dhintay baa loo taliyo la yiri waa aan ku gadan oo ay diiday oo la xirxira haye adigu waa iska soo dalay markuu xoogaa istaagay oo naftu ku soo noqotay oo badan baa midhaal ugu dhuftay wuxuu yiri habartayga aan aadahayo wuxuu ay gabadhaas soo diray gabadhaas ma jeerteenka waa gartay hadee asaga ahayo oo kala ahaa kama warqabay anigu asagii buu ila ahayo arrinkii waa ku arkayo adigu ninku reeruhu waa ila ekaayo hadee dhiigaygi waa rahayo dhiigna igama qaadi karin oo meel la isaga qaado ma lahayn hooyo mideeda kale waxa weeye ninkii asaga oo ila jooga oo markii galab way ahayd subaxdii baa la kala 3 saac haye 3 saac waxaan ku celiyay teleefonkii meeshii taarkaan ku celinay dadkii tolka ahaa isu yimid naagihii baa la wacay wuxuu yiri naagtay adeer waa dhintay magacaasuna ii bixiyay Cabdicasiis buu ii bixiyay adeerna Maxamed baa la oran jiray habartana uusan baa la oran jiray naag baa maxay tahay intaan iri aniga la gadan mahayo Soomaali baan ahay magaal baan ahay naag baa inta soo qabsatay xirxidhi weyn la yiraahdo daarooda haye adigu ninku meel buu oo la jiro dhiigii bay ka shubtay oo shafaad bay gelisay oo adigu markuu istaagay weeye markay leedahay aabahana dilreedoog weeye hooyadana waa ma jeerteen oo kurtuweeray bay joogtaa weeye markuu soo dalay ii imaanayo marka waxaa soo dhan waa sheekooyin laga sheekiyay maya waa ii yimid haye markuu ii yimid 5 bilood oo wax yar dhiman buu ila joogay mar waa maxay guriga waa laga saaray anoo maqan haddana waa la helay haddana anigii oo wiilkii ii joogaan waxaan aaday ari baadiye ah oo baadiye gabar igu haysay gurigii baan fiidkii imid wiilkii oo ka maqan baan axwar yar baa joogtay war wiilkii xagee aaday wiilkii wuxuu aaday maxay naag baa caysay yaa guriga ka saara marka waxaa wiilka guriga ka saaray horta waa kuu soo sheeko dhaafay markii aan naagihii la hadalay yaa la yidhi ilmahan xagee ka keentay baa habartii la yidhi ninkii la dhibayay haye waxay tiri anigoo shalaambood ka imid baa meesha la yidhi cagaaran baa waxaa layga siiyey wiilkan waxaa la yidhi nama korsan ka dhaa adigaan warasalahayn ma korsan ka dhaa baa la yidhi ninkuna waa maqnaayo koors buu ku maqnaa askareed haye waa korsan karaa bay tiri oo waa qaadata markii dambe adigu xaaladii la isla helay waxay tiri haddii hooyadii uu tagay anigu markaan dhib kuma qabo anigu qof waayeelahaanahay ma korsan karo ninkii koriyana waa dhintay hooyadii haddee maxay too aniga miyaan marka kan maxay u soo dirsan maayo lacag mana rabo haysta haddaad haysanaysan idinka hadday hooyadii u tagay hooyo wiilkaaga haddii uu nool yahay hadda ee muuqaalkaaga uu gaaro fariintaada maxaa u sheegi lahayd adiga oo markaa mar kale noo sheegaya magaciisa oo dhammaystiran magaciisa Cabdicasiis baa ninkuu bixiyay aniguna magacuba ma bixin dhammaystir magaciisa marka Cabdicasiis magacu ugu daray aabba ma sheegin isma sheegin Cabdicasiis baa la dhahaa naaguna waxay yiraahdeen Cabdicasiis baa wiilka la dhahaa aabaha dhalay oo maaragtay adiga bal noo sheeg wiilkaaga Cabdicasiis dib loo bixiyay aabiis magaciisa oo dhammaystiran noo sheeg aabiis Xasan Cabdille Xoosh baa la dhahaa waa gartay gabadhii la mataanka ahayd ma nooshahay waa nooshaha waa yahay
isagay gabadha ma isku eg yihiin oo ma la fiiriyey way isu ekaayeen reerkuba way ekaa wiilku gacantiina sidii bay ahayd waa gacantii murgocatay oo wiilku dhiftay markuu soorariyey ninkuu soo toosiyey gacantuu dhiftay gacantiina maarta waa murgocatay waxaan rajaynaynaa hooy wiilkaaga in la helo dadka soomaalida garab ay ku siiyaan muuqaalka lagu sheergareeyo meelo badan lagu gaadhsiiyo wax kaloo intaa dheer hooy aad noo sheegaysa maa jiro hooyo maya ilaahay waxa kula garabgala annagana allaha noo soo babiyo haddii uu dhintayna allah iga samirsiiyo hadduu nool yahayna allah iisoo babiyo aamiin hooy waxaan rajaynaynaa wiilkaaga in la helo dadka soomaalida garab ay ku siiyaan shan baa calooshayda gashay oo shan baa dhimatay calooshayda ka baxday kaas iyo nin kalaa kaasaan nin baa nafta ku ogaa ninka wax kaloo aan ugu yiraho aan ii nool ma jiro haye waa kaas isagiina maanta wax doonan maayo waddanka kama dhawa dhib ma lahan hooyo lambarka meesha lagu qorayo waa lambarka nagala hadlayso waa lambarkaan kala hadlayo mar walbaba mobilkayga waad ku jiraayo mobilkaygaasa mar walbaba aan ka arkaa inaad dadka maanta cawimayso oo mar walbaba aad leedahay maxaata idinkuu imaanayo mar walbaba kula hadlahayo kuu duceynayo meeshaasaan ka arkaa mar walba aan ka arki jiray markaasaan surucaado waxaan idhahdaa allow yaa iila hadla wiilka maalintaan wada hadalnay waana ila joogtaa gabadha ay soo dirtay baariyadda ahayd waxaan rajaynaynaa hooyo in wiilkaaga la helo dadka soomaalida garab ay ku siiyaan ilaahay waxaan ka baryay haddaan carab ku leehanaan allah isiiyo haddii uu dhintay oo mar hore la ahaadayna rabbi ha iga samirsiiyo aamiin hooyo aamiin insha allah aamin hooyo adigana khayr allah ku siiyo qoofna allah ka hayo aamiin aamiin hooyo hooyo qalbiga allah u qaboojiyo sidoo kale waxaan idin sheegayaa barnaamijkiina bilownay aynu ugu magac darnay cafi qof walbo aad markaasi doonayso amba cafis dalbo barnaamijkiina cafis ayaa bilowday waana soo booqartaa si lagu cafiyo cafisna u weydiisato gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan kusoo gabagabay ilaah noo rume yoolka riyada rajada iyo hadafkaa leenahay qalbiga faraxsan qoys midsan iyo marqiyaama janno intaa dib u kulmayno nabadgelyo bye bye